mararka qaarkood waxay ka muhiimsan tahay inaad goob cilmiga lagu barto wax ka geysato masaajid inaad ummadda u dhisto waayo maanta alxamdulillah masaajid waynu haysanaayo qof kasta oo kelmadaydan maqlaya qofkii awoodi kara inuu wuxuu bixin karo uu ku bixiyo dhismaha kulliyadaas ummadda Soomaaliyeed dadka khayrka jecel oo wanaaga jecel waxaan leeyahay arrinka inaynu fadhiga uga kacno ilaahay quraankiisu ku yiri watacaawanu cala albirri wattaqwa wala tacaawanu cala alismi wal udwan waxa weeye in khayrka la isku kaalmaysto waa waajib ayada quraanka ay muxuu ahaayay in ku waajib yeeshay هذا مركو جرو بلشنيما لغما مارمانا markii bulshadii ay wada joogtana wada dhaqan ba laga maarmaana markii wada dhaqan jirana sharci lagu kala dambeeyo iyo diin la isku xukumo oo dhaqan iyo aqoonta iyo mabaadi'o lagu qanacsan yahay laga maarmaana taana hadaan la baranin macna yeelan mayso inagoo dadka xooga saarna sidii lagu heli lahaa dad ducaada sidii loo soo saari lahaa jiilal caafimaad qaba oo wax bartay oo sharciga iyo muxuu ahaay khayrka iyo kulliyada shariica iyo diintooda bartay sidaynu ku heli lahayn taas waa waxaynu ilaahay ugu dhawaanayno waa waxaynu ummadeena ku badbaadinayno waa waxaynu nolosheena iyo jiritaankeenna oo dhan khayr u ah علميدي اللي يقول بلاوي جامعة waxaa kamid ah usul fiqiga markaan soo galay usul fiqiga waxa ay tawsurmay hatta adduunkan tasawuray يعني علمiga suu jaliil u yahay aniga kaliya يعني asaga kaliya wax ima anfacin laakiin wuxuu iga anfacay nolosheedii dhamaa suu u habaysan yahay يعني because waxa weeye waa cilmi jaliila oo kalifaya in qofku istibaad ku sameeyo adaafta ka dambaysa ahkaamta see loo soo saaraya هذا نولشي ربع كوبيس كريسة نولش هذا واحد أحكام سعوتها ganacsiga iyo nafteeda horta u daneynaya oo qofka qaanuunka dhigta ama sharciga dhigta ganacsana uu noqon karaa waxa weeye madaxna uu noqon karaa waxyaabo badan uu qaban karaa marka si qofka sharciga bartay ma ahan kaliya inuu ku kooban yahay inuu qaanuunka wax ku saabsan kaliya uu sameeyo qofku majaalaad badan baa u furan hal majaal kaliya oo qaanuunka uma furna sidaas ayaan ku doortay kulliyadda sharciga qaanuunka baahidii aan u qabo waxbarashada hay shariica wal qaanuun ee jaamacaddu iga kaafisay oo inoo dhiibtay macallimiin takhasus u leh oo maadada concept ardayda fiican ka siin kara oo khibrad iyo u leh waxa arag inay jaamacaddu inoo soo gudbisay fikir badan aan ka helnay naqaana masaajid in la dhisaa waa muhiim laakiin waxaan naqaanaa boosaaso kuwa aan anigani wax ka dhisay oo aan cid ku tukataa maanta jirin baa jira mararka qaarkood waxay ka muhiimsan tahay inaad goob cilmiga lagu barto wax ka geysato masaajid inaad ummadda u dhisto waayo maanta alxamdulillah masaajid waynu haysanaayo dadkeen iyo masaajideenna marka la isu tiriyo aad bay dadkeennu uga yar yihiin masaajidda maanta ay haystaan oo masaajidiiba aad u tiro badan xaafadii 5 ku taalayba 10 baa laga dhisay halkay 2 ku taalay 5 baa laga 4 baa laga dhisay asaaska cilmiga sharciga wuxuu ka soo bilowdaa masaajidda laakiin maanta cilmigan waqtigan mucaasirka wuxuu u wareegay jaamacaadkii marka waxay u baahan tahay oo ummadda uga baahan tahay dhismo inay sameeyaan ummadda Soomaaliyeed dadka khayrka jecel oo wanaaga jecel waxaan leeyahay arrinka inaynu fadhiga uga kacno إلهي قرآن كيسو كيرو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
waxa weeye in khayrka la isku kaalmaysto waa waajib aayadda quraanka ay muxuu ahaayay ina ku waajib yeeshay taa marka qof kasta oo kelmadaydan maqlaya qofkii awoodi kara inuu wuxuu bixin karo uu ku bixiyo dhismaha kuliyadaas أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وصدقة الجارية ووحى الدنيا آخرة بين كل بانينه ولبا وقت كان أدق وإنه أبا هنه دمانتين إنه وضع أرقنه إنه سيدا كليه إنه كبد بادي كرنا إنه تاي داد كينا وإنه كلا دقالنه فسادك إيا الشركة إيا فسقة إيا وحن أو ودنك aadka ugu soo kordhaya waxaynu kula dagaalami karnaa oo aynu ka hor istaagi karnaa oo aynu muxuu ahaayay adduun iyo aakhiraba ilaahay inay ugu dhawaan karnaa waxa weeye inaga oo dhinaca ilaahay shariicadiisa iyo muxuu ahaayay sidaynu dadkeena dhinaca ugu tawjiihin lahayn sidaynu u bari lahayn oo khayrka aynu muxuu ahaayay aynu dadkeena ugu jihayn lahayn arrinkaas baynu kaga badbaadi karnaa hawshaas markaan waxaan leeyahay ilaahay khayr idin siiyo الله يدين بركيه عد كسته أو أرنكا جعل أو وحكو بحنيسة إلهي درتيس وحن لأنها وحود الله بركيه إلهي وحن قبري إن إني ميسان كحسنات إن إلهي أساره إن إلهي عرور تود أي حاسس كود إلهي يقول دوره إلهي يقول حفتيه عد الله عدي كلمة أما مال كذا كوب حسة إلهي وحن قبري إن خير جار إن إلهي سيه عرورته إن إلهي أبد باديه حاسس كيقوليه إن إلهي أبد باديه عمرك إلهي يقول بركيه مالكنا إلهي يقول بركيه إلهي ساسان كبرينا